wasiirka arrimaha dibadda ee dalka jabuuti maxamuud cali yuusuf ayaa ka hadlay sidaa uga go-an tahay dalka jabuuti inay ku guulaystaan kursigaan joogtada ahayn ee qaramada midoobay oo kula tartamayaan waddanka kenya. maxamuud cali yuusuf ayaa hadlayay kadib markii uu ka soo laabtay dibadda isagoo ololo ugu jira inay jabuuti taageero hesho. wariyaha v o eda ee magaalada jabuuti ramadaan muuse ayaa warbixinta noo soo dira. ugu horeyna wasiirku waxa uu ka hadlayaa sida u arko go-aankii guddiga joogtada ee afrika oo badankeedu ay ugu codeeyeen dalka kenya. codkaasi annagu waxaan u aragnay inuu sharciyeysaneen sababtoo ah kolka laba dal ay tartanka ay dhaahiin ayaan doonaynaa inaan galno waxaa sharci iyo qaanuun u yaala midowda africa inaad dal midaata loo diro hadday kursi midaata ay tahay laba dal inay diraan uma taalo waa inay ka doorsadaan labadoo mid ah laakiin ka doorsigaasi waxaa ka horeeya dhowr tallaaboodo inay qaataan ay ahayd. tallaabada ugu horeysa ururka danjirayaasha africa new york ku sugan inaa la wareystaabe war sharci maxaa yaala kolka laba dal sidaa isku qabsadaan oo dee mabaadi maxaa yaala qaanuunka la hirgelinayo waa maxay waa inay yidhaaheen baad tallaabadaas horta way ka boodeen taasna annagu waxaan u aragnay wax sharci darriya. talabaad codaysigaas ama doorashadaas ina meeshii lagu qabtay ama guddiga lagu qaban lahaa laguma qabanin. wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Djibouti Maxamuud Cali Yuusuf ayaa sheegay waxa lagu qiimeeyay qabashada kursigaasi aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo waxay Djibouti ku mutaysan karto maanta xagga maaragtay kaalintaad ka qaadanaysid nabadda iyo sida nabadda adduunka aad u xoojin lahayd oo doorkaad ka ciyaaraysid ayaa horta qiyaastu ay tahay. qiyaastaas haddaad xalka ha dhigtid Djibouti meel kaalin fiican bay kaga jirtaa maanta haddii ciidana shisheeye aan dalkeena ku hayno waa hadafka ugu horeeya waxay weeyaan inaan la dagaalanka argagixisada la dagaalanka burcadbadeedka deganaashada ama gobolkeeni waa ka shaqaynteedii weeyaan waxaan anagu aan hadaf ka leenahay ciidanada shisheeye dalka aan ku soo dhaweynay. talabaad waxaad ogaataa ciidanada shisheeye intayna Djibouti imanin Djibouti hawlgal badan oo qaramada midoobay ciidanadoodii ay meel fiican ay kaga jirtay ayaa taariikhdu ay sheegaysaa. waxaan tagnay Cote d'Ivoire xataa waxaan gaadhnay ciidanadeeni waxay gaadheen Haiti meel fog bay ku taalaa kolka ciidanaan ku lahayn Haiti Cote d'Ivoire Centrafrique maanta RDC Congo ninka ma aragtay ciidanada qaramada midoobay xukuma waa nin reer Djibouti weeyaan waa Colonel Abdurazaq waa la garanayaa. waxaad ogaataa yarinteeni ama dalka yaraanteeni yani laguma qiyaasi karayo waxqabadkeeni waa aad buu uga weyn yahay maaragtay waxqabadkaasi sidii aan aragtida lanaga qabo kolka horta kaabaan adeegsanaynaa. talabaad mabaadi baan aaminsanahay annagu dal yar baan nahayo dalka yarna wuxuu ka shaqaynayaa daris wanaag wuxuu ka shaqaynayaa sidee baa gobolka maaragtay siyaasadeedii ay u fiicnaan lahayd oo dalalkiisku soo dhawaan lahaayeen. dal yar mar kastaba wuxuu leeyahay aragti ka duwan dalalka waaweyn taasina waxa weeyaan badi waxaa looga helaa dalka yar waxaa la leeyahay dana gaaro oo danaha dalalka kale saameynaya ma wato laakiin kulleyba had laga sugayo kaaba ayuu fiicnaan karayaa ayay ra'yigu u badan yahay. kolka rajadeenu waxa bay u weyn tahay rajadeenu aad bay u weyn tahay. marka wasiir adigoo naga raaliya cilaaqaadka Kenya iyo Djibouti maadaama ay tahay tartan xalaala wax saameyn kuma yeelanayso may waanan ka shaqayn doonaa inay cilaaqaadka ama xiriirka labada dal inuuna maaragtay saameysmin ama inuuna xumaanin. xiriirkaasi dan buu noo yahay inuu sii jiro. igaad baan maaragtay dalalka igaad ururka ku jira ayaan nahay wax badan baan noo socda kolka tartanku inuu shariif noqdaa waa inuu shariif noqdaa oo dee xumaan laga shaqaynin laakiin nin kastaba kartidiisii iyo awoodiisii meesha gaadhsiisoba ha gaadhsiisee si yaroo shariif oo karaamad leh inuu ugu dadaala uga shaqeeya. taabaan aaminsannahay taana waan hore u wadaynaa insha allah. Ramadaan Muuse VOA Djibouti.
mase la dhihi karaa dagaalka ka dhanka al-shabaab ee dowladda soomaaliya iyo amisom waxaa ka xoogan kan dadka caadiga ee reer guuraaga ay kula dagaalamayaan ururka al-shabaab? su-aalahaas iyo kuwo kale saare cabdi axmed waxay hordhigtay gaashaanla sare cabdulaahi cali macow. horta runtii waxa waaye dadka soomaaliyeed waa dad aad oo balanbalay oo dhibaato badan ay u geysteen shabaabka argagixisada ay u geysteen oo aad maaragta aada ogtahay intaasoo zakawaade oo dadka aysan awoodi karin iyagoo abaaro ku jiro iyagoo maaragta duruufo kale ay haystaan wadooyinka ay ka xireen logisticada iyo dhakhaatiirta ay soo gudbi karin dadka marka ugu dambeysa waxa waaye cidiyaha ayay ku dagaalamayaan wayna kaga guuleysanayaan sababtoo ah waxa waaye haddii aan tusaale usoo qaato si deg dega maxaa ciraaq kurdiyiinta daacish iyagaas ka kiciyay alqaacida marka waxa waaye dadka reer miyiga way hubaysan yihiin laakiinse nasiib darro waxa inaysan dawladdii maaragtay aysan ku baraarugsanayn in dadkaasi la abaabulo oo maaragtay daawo iyo logistic iyo hub iyo wax walba iyo rasaas lala gaaro iyaga ayaa maaragtay ka awood badan oo dagaalka ay dagaalamayaan waa dagaal dhab ka ah waxaa tijaabo waa kii sunna waljamaaca ay ku jireen shabaab. waa tahay waa wax mar walbaba iska dhaco waxaa laga yaabaa in dowladda xataa waxyaabo abaabulan oo meel ka socday ogtay aysan badi jirin laakiin markii al-shabaab ay meel soo weerartaba dadka iska caabin ay sameynayaan sida hadda arrintan dhinacan koonfur galbeed oo kaleeta ka dhacda waktigan marka dadku intee awood u leeyihiin inay la dagaalami karaan al-shabaab ayay kula tahay iyadoo la ogyahay al-shabaab in xataa dhul fara badan oo koonfurta soomaaliya gobollo xataa ay gacanta ku hayaan sidey ugu sii suuroobi kartaa? waxa ay ku suurtoobaysaa dadka waxa ay muxuu ahay la geeyey heerka ugu dambeysay ma aan dhimano ama muxuu ahay shabaab aan ka kacsano degaankeena ma qaadan karno oo mana dul qaadan karno muxuu ahaa xoolaha ay naga boobayaan caruurta ay maaragtay naga afduubanayaan intaba uma dul qaadan karno marka waxa waaye dadkii ayaa ma hadda soo jeestay oo usoo jeesteen inay maaragtay degaankooda ay ka difaacdaan shabaab taasna waxa guulaha ugu weyn oo counter insurgencyga lagula dagaalamo in dadweynaha lagu kiciyo dadka reer miyiga lagu kiciyo wadooyinka ay marayaan shabaabka loo galo ciidamada qalabka sidana maaragtay dadkaasi maaragtay gargaar ay u fidiyaan oo maaragtay dhaawacyada laga soo qaado oo maaragtay lagu sii dhiirigeliyo inay la dagaalamaan dadka deegaanka ayaa ka adkaan kara shabaab sida macawiisleyda iyo sunna waljamaaca. waa gartay dhinaca markii laga fiiriyo dagaalka dadka deegaanka ay wadaan oo al-shabaab ka dhanka ah haddaanba dhinaca kale u dhigno iyo kan amisom iyo dowladda federaalka ee ku wado keebaa saameyn badan ay kula tahay? waxaa kana saameyn badan sababtoo ah waxa waaye conventional ayay u dagaalamayaan ciidamada dowladda iyo maaragtay iyo amisomka dagaalka waa laba nooc dagaal gurila iyo dagaal waxawaa conventional shabaabka maadaama ay ku dagaalamayaan dagaal gurila oo gaadma oo ku dhufo ka dhaqaaq miina inta u dhig muxuu ahay amisomka taasi awood umala mana samayn karto ciidamada dowladdana ma samayn karaan shabaab markii ay ku duulaan amisomka iyo ciidamada dowladdana meeshoo dhan ayay u firaaqaynayaan markaasi waxay ku bilaabayaan dagaalkii gaadmada ahaa laakiin dadka kooda ma qorsheysno oo waa dad iska rayid ah oo ayaga tooda markii loogu imaado oo dhibaato xanuun ay gaarto unbay sameynayaan marka sidee ayuu kusii jiri karaa? waxa waaye caradaasi maaragtay dadweynaha ama maxaa dadka reer miyiga ay muujiyeen ayaa waxaa la rabaa in hay-adaha intelligenceka military intelligenceka iyo sirdoonka inay ka faa'iidaystaan oo dhexgal ay ku dhiirigeliyaan inay dagaalka ay sii wadaan wixii logistica ay u baahan yihiin iyo dhaawacyadana ay kasoo qaadaan taas ayaa looga guuleysan karaa shabaab laakiin dagaalkan amisomka ee ku jirto conventionalka oo taangiyada iyo artilleriga iyo b m ka la tuuraayo iyo sevenka dagaalkaasi muxuu ahay dagaal shabaab ma ahayn waa dagaal gurila kan ay hadda ee remiyiga ay bilaabeen in lasii dhiirigeliyo oo dowladda dhaqaalo badan ay ku bixiso waaweyn. gaashaanla sare cabdulaahi cali macow oo arrimaha amniga ka faalooda wuxuu khadka telefoonka ugu warramayey saare cabdi axmed. markana nairobi magaalada nairobi ee dalka kenya waxaa maalinkii labaad ka socda shir ay ka qaybgalayaan wadamada barwaaqa sooranta xubnaha ka mida wadamadaasi horey ay u gumaysan jirtay britain boqortooyadeeda wadamadaasi oo ay xubin ka tahay kenyana waxaa shirkaasi looga hadlay arrimo ku saabsan dhibaatooyinka soo wajaha haweenka iyo sidoo kale dhallinyarada iyo sidii xal loogu heli lahaa wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed ayaa warkan noo soo diray. dalka kenya waxa uu ka mid yahay waddamada sida xooggan looga dareemayo awoodda soo ifaysa ee ah in dumarku ay ka dhex muuqdaan xafiisyada dowladda
xukuumadda hadda ee madaxweyne uhuru kenyatta ayaa lagu tilmaamaa inay tahay xukuumaddii ugu horreysay ee dalka soo marta ee ay haweenku xilalka ugu badan ka qabtaan. arrintan ayaa soo jiidatay indhaha caalamka. magaalada nairobi waxaa maalinkii labaad ka socda shirka looga hadlayo arrimaha haweenka iyo dhallinyarada, iyadoona shirkaasi si gaar ah looga hadlayo dhibaatooyinka iyo caqabadaha ay inta badan wajahaan iyo sidii xalkama dambaysa loogu heli lahaa. waxaana shirkaasi ka qaybgalaya mas-uuliyiin kala duwan oo ka kala socota wadamada hodanka iyo mas-uuliyiin ka socota wadamada qaaradda afrika. xogayaha guud ee wadamada Patricia Scotland oo ay VOA wax ka weydiisay ujeedada shirkan ayaa sheegtay in shirku uu yahay shir ay markii ugu horreysay isugu wada yimaadeen ragga iyo dumarka caalamka, kuwaasoo ka tashanaya qorshe horseeda in la wada guulaysto. This aspiration for gender parity has been there since 1985 and we have made incremental dhiirigelintan haweenku waxa ay soo jirtay tan iyo sannadkii 1985. waxaan samaynay horumar qaran weyn oo muhiim ah. haddii aad eegtaanba dadka halkan fadhiyo ee bannaankan jooga ay og yihiin, qof kasto ayaa xasuusanayo. haddaad dib ugu noqoto sannadkii 1985, qof kasta oo naga mida ayaa garanayo shaqooyinka aan maanta hayno rag ayaa hayn jiray oo qaban jiray boosaskan. waxaan ahay haweenaydii ugu horreysay ee noqotay xogeeye guud, waxaana iiga horreeyey xilkaasi 6 xubnood oo kale. marka haddii aad ka fikirto isbeddel khayrul caadi ah ayaan samaynay, waana mid aad u xooggan. uma samaynayno isbeddelkan oo keliya inaan fursado u abuurno haweenka, ee waxaan sidoo kaleeto u samaynaynaa in rag iyo dumarba wax la wada qabto. waxa rag iyo dumar ay wada qabtaanna waxa ay noqdaan kuwo laga faa'iido oo faa'iido yeesho. Amina Maxamed, wasiirka ciyaaraha iyo dhaqanka ee dowladda Kenya oo furitaanka shirkan ka jeedisay khudbadda madaxweyne Uhuru Kenyatta, ayaa sheegtay in xilligan ay tahay wakhtigii laga faa'iidaysan lahaa faa'iidooyinka wadamada hodanka ah si loo dhiirigeliyo haweenka iyo dhallinyarada. To accelerate gender equality and the empowerment of women and girls within the gender priorities set forth by the Commonwealth. si sare loogu qaado sinaanta xuquuqeed ee dumarka iyo awoodsiinta haweenka iyo gabdhaha ee la dejiyey nidaamkan. fursaduhu waa kuwo muhiim u ah hoggaanka dumarku ay qabtaan, awoodsiinta dumarka iyo soo afjarista qalalaasaha ka dhanka ah haweenka iyo guud ahaanba la dagaalanka isbeddelka cimilada. dadaaladan la doonayo in lagu horumariyo dumarka qaaradda Afrika, gaar ahaana kuwa Kenya ka sokow, waxaa sidoo kale jira dhibaatooyin kala duwan oo ay wajahayaan dumarka, kuwaasoo ah in haweenka Kenya lala xiriirinayo inay ka qayb qaataan weerarada ay Kenya ka fuliyaan kooxaha argagixisada. gobolka waqooyi bari ee Kenya ayaana ka mid ah meelaha ugu badan ay dhibaatadani ka jirto. Maryan Xuseen Waraab waxa ay ka mid tahay gabdhaha aan xuduudda lahayn ee u dhaqdhaqaaqa haweenka bariga Afrika. marka haweenka haddii ay gacanta isqabsadaan arrimo badan ayaa looga hortegi karaa. dhibaatooyinka ay nagu hayso annaga haddaan nahay reer North Eastern mise reer Gaarisa, sidaad og tahay gabdho badan mise caruuro badan oo annaga aan dhalnay oo qaarkood jaamici ah ayaa intay baxeen waxay ku darsameen hay-adaha xagjirka ah, al-shabaab. qaarkood waxay aadeen ISIS, kuwaasoon lalahayn maanta dhaqaale la'aan bay u raaceen mise wax kale u raaceen. dadka iyaga oo aqoon-yahan ahaa siday wiilkii jaamacadda u horseedayay inay ma aragtaaye la galo oo dadka lagu laayo, wuxuu ahaa nin ma aragtaaye abukaati ah mise lawyer ahaa oo ka baxay jaamacadda u weyn Kenya oo Nairobi University ah. marka wixii ku sababana lama garan karo. marka haweenka waxaanan loo malaynaynin ayay hayaan. Khadar Maxamuud Xareed, VOA.